bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal daawadayaal rabadaan wanaagsan meel walba oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalkaygu idiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa barta aynu youtube-ka ku leenahay ee runsheeg saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo baabi'iyey natiijada doorashooyinka isbarbar socda ee ka kala socda ceel waaqi iyo garbaharri madaxweyne ku-xigeenka puntland oo u dhaartay ciddii fulisay weerarkii gaalkacyood iyo madaxweynihii hore ee dalka kenya oo geeriyooday qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibadeenugu xiran oo idiin soo gudbin doonaa hadduu rabbi raalli ka noqdo fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis le idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saardhaan like-na nagu dhiirigelisaan gambaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyey aad u heshaan idinka alle saaxiibayaal sida hordhaca warkaygaba aad ku daawateen haddaynu ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gebi ahaan baabi'iyey natiijada doorashooyinka isbarbar socda ee ka kala dhacaya ceel waaq iyo garbaharey madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wareegta uu soo saaray sharci darro ku tilmaamay doorashada ka socota magaalada ceel waaq iyo doorashada kale ee xubno ka tirsan guddiga doorashada ay ka bilaabeen garbaharey wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in doorashooyinka isbarbar socda ee garbaharri iyo ceel waaq ay yihiin kuwo sharci darra ah oo baalmarsan sharciyada jihaynta doorashada dadban ee ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wareegtadan oo lagu socodsiiyey madasha wadatashiga qaran iyo gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee golaha shacabka ayaa lagu faray in la xushmeeyo heshiiskii 17 sebtembar 2020 iyo hibraacyadii ku lifaaqnaa ee xubnaha madasha wadatashiga qaran kala saxiixdeen 1 Oktoobar 2020 iyo 17 May 2021 qof lagu soo doortay hanaan khilaafsan heshiiskii doorashooyinka iyo xeerka lambar 30 ma yeelan karo xuquuq la mid ah xildhibaanada lagu soo doortay hab waafaqsan heshiiskii 17 Sebtembar 2020 sidaas darteed kama qayb qaadan karo doorashooyinka guddoonka iyo tan madaxweynaha iyadoo aan la helin heshiis ay wadar ogol u gaaraan madasha wadatashiga qaran si waafaqsan heshiiskii 17 Sebtembar ama uusan soo saarin baarlamaanka 11aad sharciyad wax ka bedelaysa xeerka baarlamaankii labadiisa aqal ay horey u ansixiyeen ayaa lagu yiri wareegtada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka soo saaray doorashooyinkaasi isbarbar socda madaxweynaha ayaa tilmaamay in wax ka bedelka heshiiskii 17 Sebtembar iyo habraacyadii ku lifaaqnaa ay u baahan yihiin heshiis siyaasadeed oo ay dib uga wada xaajoodaan xubnaha madasha wadatashiga qaran isaga oo faray in ay degdeg isugu yimaadaan si xal dhammaystiran looga helo kuraasta 16 ee ku aasaysan garbaharey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa adkeeyey in la sii dardargeliyo doorashooyinka loo madlan yahay ee guddoonka labada aqal iyo doorashada madaxweynaha sida ugu dhaqsiyaha badan warbixino kale oo soo baxaya ayaa sheegaya in kadib madasha wadatashiga qaran marka ay kulankaasi yeeshaan in miiska la soo saarayo kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kaasoo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo isbaara u dhigtay uu khilaafay heshiiskii 17 Sebtembar kooxda Rooble ayaa hadda doonaya in ay doorashada ceel waaq ay ku qabtaan balse madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya warqadiisa ka soo baxday xafiiska ayaa waxay waxba gama jiraan ka dhigaysaa doorasho kasta iyo natiijo walba oo ka soo baxda ceel waaq sidoo kale garbaharey madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale madasha wadatashiga qaran ku amray in si dhaqso ah ay xal dhammaystiran looga gaaro doorashadii 16 kursi ee taalla garbaharey loona aasteeyey sidoo kale tani waxay culays siyaasadeed ku noqonaysaa Axmed Madoobe hogaamiye Jubbaland oo sidoo kale iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble doorashada dalka ayaa maraysa meel xasaasi ah iyadoo hadda magaalada Muqdisho ay ku sugan yihiin dhammaan xubnaha madasha wadatashiga qaran ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish Axmed Cabdi Kaariye oo qorqor madaxweynaha Galmudug sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen sidoo kale musharax madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni oo culays siyaasadeed uu ka saaran yahay magaalada
garowe taasoo Axmed Karaash oo hadda bilaabay inuu dhabarjabin siyaasadeed uu ku sameeyo. Dhawaan ayaa la rajeynayaa in madasha wadatashiga qaran ay ka fariistaan in doorashada ceel waaq lagu qabto iyo in Garbaharre lagu qabto. Sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa tilmaamay awoodda baarlamaankan cusub isaga oo tilmaamay in xeerkaasi kaliya ay wax ka bedeli karaan baarlamaanka cusub iyo sidoo kale madasha wadatashiga qaran, balse waxa intaasi ka soo haray aysan waxba ka bedeli karin heshiiskii 17 Sebtembar. Rooble, Axmed Madoobe iyo sidoo kale dowladda Kenya ayaa isu garab siinaya in ceel waaq doorashada lagu qabto. Sidoo kale qaar ka mid ah guddiga doorashooyinka oo gaaray Garbaharre ayaa soo saaray jadwalka kuraas ka mid ah kuwa yaala Garbaharre kuwaasoo loo madlan yahay in lagu soo gabagabeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa go'aan adag ka soo saaray doorashooyinkaasi isbarbar socda. Qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ayaa u dhaartay ciddii fulisay weerarkii Gaalkacyood. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash ayaa si kulul uga hadlay weerarkii khasaaraha dhaliyay ee ka dhacay gobolka Mudug dhinaca Puntland. Waxaan ka tacsiyadeynayaa shaqaaqadii ka dhacday gobolka Mudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo. Waxaan eebe Jannato Firdowso weydiinayaa askarigii ku naf waayay inta ku dhaawacantayna waxaan rajeynayaa in eeba u boogadhayo uu ugu horeeyo nabadoon Yaasiin Cabdisamad iyo taliye ku-xigeenka qaybta gobolka Mudug. Waxaan aad uga xumahay dhacdada lidiga ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka iyo kan degmada sababtayna dhaawaca iyo dhimashada muwaadiniinta reer Puntland. Waxaan u magacaabayaa guddi ka howlgasha baarista iyo kurgulida shaqaaqadaasi. Baarista kadib cid kasta oo falkaasi ku lug yeelata waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan. Baaristu marka ay soo dhammaato ayaa la rajeynayaa inuu xilkiisa waayi doono taliyaha qaybta gobolka Mudug kaasoo amray in la baabi'iyo dadkaasi mas'uuliyiinta ee ku sugnaa goobta falku ka dhacay. Qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Kenya ayaa geeriyooday. Madaxweynihii hore ee dalka Kenya Kibaki ayaa geeriyooday maanta oo Jimcaha isagoo ku jira da'da 90aad. Geerida Kibaki ayaa waxaa xaqiijiyay madaxweynaha hadda talada haya dalkaasi Uhuru Kenyatta. Waa murugo waajib ah inaan ummadda u sheegno Kibaki madaxweynihii saddexaad ee Jamhuuriyadda Kenya waxa uu ahaa hogaamiye wax badan u soo qabtay ummadiisa si weyn u jeclaa. Waxa uu u adeegay rabitaankooda si hagar la'aan ah si uu horumariyo nolosha dadkiisa ayuu yiri. Waxa uu hadalkiisa sii raaciyay anigoo ka barooranaya kana baroor diiqaya khasaaraha aan la qiyaasi karin ee geerida Kibaki. Waxaan hadda markasta xasuusanayaa oo aan uga mahadcelinaynaa safarkii uu madaxweyne Kibaki oo soo maray waa adeegida dalkiisa laga soo bilaabo dagaalkii ay Kenya xornimada ku qaadatay. Kibaki ayaa ahaa madaxweynihii saddexaad ee soo maray dalka Kenya. waxa uu xilka hayay 2003 ilaa 2013. Kenyatta ayaa sheegay in dalka uu gali doono xaalad baroordi qaran ah inta laga aasay madaxweynihii hore ee geeriyooday. Sidoo kalena Kenyatta ayaa amray in hoos loo dhigo calanka dalkaasi. Kibaki ayaa ka qayb soo qaatay dhismaha dawladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya oo madaxweynaha ka ahaa Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed taasoo lagu soo dhisay dalka Kenya sanadii 2004. waag saaxiibayaal inta sayaan ku soo gabagabeynayna warkii aad ka daawanaysay Ronshack TV. fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe noo saadhaan, like na nagu dhiirigelisaan, gambaleelka furataan, soo warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle.